isniin bisha abriil ee sanadka 2024kana waa 22 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4tii galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. waxaa jira hay-ad kaleeto, shirkad kaleeto Liberty la yiraahdo oo Australia gaaska ka qodo oo ayadana aan la saxiixanay heshiis bishii March. Turkida weli BS lama aanan saxiixan, in wixii la fahmaa la rabaa. Turkida waxaan la saxiixanay waxay isafgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka. waxaa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan xaaladda dhaqaale ee Maraykanka iyo saamaynta sicir bararka. maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rab waa shaqa waa heli karaa Maraykanka. waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha, yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay u kacaysayo sanad ka dambeeya 3 sano lasoo dhaafay way koraysa. laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Maraykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida. Katrina Lang oo ahayd wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa soo gabagabayn doontaa shaqadii Soomaaliya ay ka haysay marka la gaaro bisha May ee soo socota. Miss Lang oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyo UNISOM ayaa waxay tiri, waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto iyo in midowda Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan inay ka ciyaaraan door muhiim ah taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. waxaa kaloo intaasi ku dartay, dhankayga Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waana sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kastoo aan joogo. Katrina Lang, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa howlaheeda ay soo gabagaboobi doonaan 21 bisha May ee sanadkan. manaysan bixinin faahfaahin intaas ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibkeeda shaqo ee ay ka haysay dalka ku yaala bariga Afrika ee Soomaaliya iyo sababaha keenay inay soo gabagabayso. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta sheegay inuu bilaabayo in bilaha soo socda uu dadka magangelyo doonka ah u musaafurin doono dalka Rwanda, iyadoo qorshaha Sunak uu qayb ka ah ama uu qayb ka yahay sidii dadka kale ee dalkiisa iman lahaa looga niyad jabiyo. qorshahan ayaa muran dhaliyey. hadalka Sunak ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkaasi lagu wado inuu ansixiyo qayb qorshaha ka mid ah. Sunak ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in tirada badan ee magangelyadoonka ah laga horjoogsado inay kasoo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaantay mid aan shaqaynaynin oo arxan-darro ah. hindisaha cusub ayaa ku qasbaya garsoorayaasha maxkamadda in dalka Rwanda ay u tixgeliyaan meel nabdoon oo dadkan la geyn karo, islamarkaana ay wasiirada awood u yeelan karaan inay helaan ama ay wasiirada awood u helaan inay baalmari karaan qayb ka mid ah sharciyada xuquuqda bini'aadamka ee caalamka iyo kuwa dalka Britain. Sunak oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi, intaas bay ku dhan tahay, ka meermeer dambe ma jiri doono, dib u dhigis dambena ma jirto, isagoo intaa ku daray inuu arko dhowr duulimaad oo bil walba baxa marka la gaaro bilaha xagaaga.
dalka u k ayaa doorashooyinka guud isu diyaarinaya dhammaadka sanadkan. xisbiga muxaafidka oo 14 sano soo xukumayay dalkaasi ayaa ballan qaaday hanaan socdaal oo adag kadib markii midooda yurub laga baxay, waxaana loo malaynayaa inay guuldarro iyo cadaadis xoog leh kala kulmaan xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka. muslimiinta iiraan ayaa isniinta maanta markii ugu horreysay sannado badan kadib u dhoofay dalka sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhowaad 10 sano mar laga joogo ay ka mamnuucday riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal. kooxdan oo qayb ka ah 5,720 xujay oo Teheraan ay u qorshaysay inay soo cimraystaan ayaa ah jameecadii u horreysay ee iiraaniyiin ah oo tegaya magaalada barakeysan ee Maka, waxayna maanta ka dhoofeen garoonka diyaaradaha Imaam Khomeini ee magaalada Teheraan sida ay sheegtay warbaahinta IRNA ee dowladda Iiraan. safarkooda ayaa imaanaya kadib markii Tehraan iyo Riyaad ay sanadkii hore heshiis ku gaareen wadahadallo in muddo ah uu garwadeyn ka ahaa Shiinaha, kaasoo ujeedkiisu ahaa in dib loo soo celiyo xiriirkooda iyo dib u furista safaarahooda oo xirnaa in ka badan 9 sano. sacuudiga oo ah dal ay ku badan yihiin dadka sunniga iyo Iiraan oo shiicada ay ku badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray 2016 kadib markii safaaradda sacuudiga ee Iiraan lagu weeraray intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhashay xukun dil ah oo Riyaad ay ku fulisay Namir al-Namir oo ahaa wadaad weyn oo shiici ah. kadib heshiiskii ay gaareen labada dhinac, xujayda Iiraaniyiinta ayaa hore loogu ogolaaday inay dib ugu laabtaan gudashada acmaasha xajka sanadkii hore, laakiin cimrada ayaa mamnuuc ka ahayd ilaa iyo maanta. safiirka sacuudiga u fadhiya Tehraan Cabdulaahi bin Sacuud al Anazi ayaa maanta ku sugnaa garoonka diyaaradaha isaga iyo mas-uuliyiin badan oo Iiraan ah si ay u sagootiyaan kooxdii ugu horreysay ee cimrada tegaysa ee Iiraan ka socota. ugu dambeyntiina madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah booqasho rasmi ah ku tegay dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq, taasoo ah booqashadiisii ugu horreysay muddo 13 sano ah uu halkaasi ku tago, iyadoo la filayo inay ka wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka iyo wax soo saarka saliidda iyo kheyraadka biyaha. Erdogan ayaa Baghdad kula kulmaya ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed al-Suudani iyo madaxweyne Cabdilatiif Rashiid ka hor inta uusan booqan mas-uuliyiinta magaalada Erbil ee caasimadda gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq. Erdogan oo 13 sano kadib markii ugu horreysay tegay Ciraaq ayaa safarkiisa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay kacsan tahay xiisadda gobolka oo cirka isku shareertay bilihii lasoo dhaafay, taasoo ay sii hurinayaan dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza iyo weerarada u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq al-Suudani ayaa sheegay in Baghdad iyo Ankara ay wadaagaan taariikh islamarkaana ay leeyihiin dano siyaasadeed iyo fursado isku mid ah intii uu ku guda jiray booqasho uu dhowaan ku tegay Washington, isagoo intaa ku daray in amniga iyo biyaha ay yihiin ajandaha kulanka ay la leeyihiin madaxweyne Erdogan oo booqashadiisii dalkaasi ay ugu dambeysay sanadkii 2011. wadaagista kheyraadka biyaha ayaa ah qodobka ugu weyn ee ay ku muransan yihiin labada dal, iyadoo Baghdad ay aad u dhaleeceysay biyo-xireennada Turkiga uu ka dhisay webiyada Tigris iyo Furaad oo ay wadaagaan, taasoo sii xumaysay dhibaatada biyo la-aan ee Ciraaq. wadahadalladan ayaana la filayaa in arrimahaasi wax un lagaga gaaro. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan markale dhegeystayaal. aan ku bilownay guddiga doorashooyinka ee Somalilan ayaa maanta ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee codbixiyayaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka. tirada guud ee codbixiyayaasha guddiga ay soo saareen ayaa ka badan 1,200,000 oo qof. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle. guddiga doorashooyinka Somalilan ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisbiyada qaranka ee bisha Noofembar 13 2024 u qoondaysan in ay qabsoonto.
haddii aynu isdul taagno gobollada somalilan gobol walba tirada guud ee guddiga doorashooyinka somalilan codbixiyaasha rasmiga ah ee liiska maanta ay ku dhawaaqeen gobolka awdal waxaa u diiwaan gashan 181,801 codbixiye. gobolka maroodijeex waxaa u diiwaan gashan 497,734 codbixiye, halka gobolka saaxilna ay u diiwaan gashan yihiin 92,620 codbixiye. gobolka togdheer waxaa u diiwaan gashan 266,279 codbixiye. gobolka sool waxaa u diiwaan gashan 98,960 codbixiye. gobolka sanaagna waxaa u diiwaan gashan 119,648 codbixiye. tirada guud ee codbixiyaasha doorashooyinka somalilan ee soo socda ayaa waxa ay dhan tahay 1,227,048 codbixiye, kuwaasi oo si rasmiya u noqonaya liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha ka qaybgeli doona doorashooyinka somalilan ee bisha 11/13 u qoondaysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024. khadar maxamed cakule, VOA, Hargeysa. doon wadda shixnad ganacsiya ayaa markii ugu horreysay muddo sannado ah ku soo xiratay dekedda magaalada baraawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh. doontan oo u rarneyd ganacsato soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku soo xiratay dekedda baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya. waxay waday doontan raashin iyo badeecooyin kala duwan oo ay lahaayeen ganacsatada magaalada baraawe. waddanka iskutaga imaaraadka carabta ayay ka soo sharaacatay doontan, waxayna dekedda baraawe u soo socotay muddo 5 maalin ah, sida uu sheegay wasiirka dekedaha maamulka koonfur galbeed cali sheekh cabdulaahi cali afgooye. runtii maanta waxay noo ahayd maalin oo nagu cusub oo dadka degan baraawe iyo koonfur galbeedba, sababtoo ah doontan weligeeda doon la arkay ma aha. waxay waday alaab aada u fara badan oo ay leeyihiin ganacsata soomaaliyeed. muhiimad marka intee la eg ayay bulshada baraawe u leedahay in markab ama doon ganacsi ay ku soo xirato dekedda? dadweynaha baraawe waxay u malaynayeen inay banaanbax samaynayeen, waayo dadka meesha isugu yimid oo aada u faraxsanaa, waxayna aada ugu faraxsanaayeen doontan weyn oo aan weligooda arkin oo alaab aada u fara badan wado, oo inkastoo weli alaabta aan bilaabanin in la soo dejiyo. kulley alaabta markii la soo dejiyo ay ogaan doonaan, sababtoo ah ganacsiga si loogu maarmo ganacsiga ay dibadda meelaha kale dekedaha kale ay kusoo degi lahaayeen koonfur galbeed si ay ugu maaranto insha allah. sababtoo ah annaga waxaa go-aankeena ah inaan mar dhow ka howlgalno dekedda baraawe dhismaheeda. marka arrintanna waxay fursad noo siisay in aan alaabta laga dhisi doono dekedda baraawe inaan dibadda laga keeni doonin, oo toos ay markay kasoo baxda ama hindiya ama jarmalka ay kasoo baxdo ama dubai ay kasoo baxdo, si toos ay ugu soo xiran doonto dekedda baraawe. runtii waxay noo tahay wax horumar oo aan ku faani karno. arrintaasina waxaa aada noogula shaqeeyey ganacsatada soomaaliyeed oo garab weynna ka siiyey ganacsatada degan koonfur galbeed baraawe. marka goormay ugu dambeysay dekedda baraawe doon ama markab ay ku soo xirato? waqtigii dowladii hore, dowladii kacaanka, dowladii siyaad bara ugu dambeysay. ilaa hadda wax doon oo yaryar oo meelaha kasoo baxay iyo wax yar qaadayo oo adiga maaragtay qudaar iyo waxaas qaadayo meelahan kasoo baxay oo local ah maahane. doon dibadda ka timid oo dubay kasoo shiraacatay oo ilaa baraawe soo istaagto waa tii ugu horeysay oo hadda aan ognahay. ama kale dadka weynaha ay noo sheegayaan, waayo waxaa ka dareemi kartaa dadka farxadda sida banaanka ay usoo baxeen ay maanta u imaadeen dekedda, oyna ugu faraxsanaayeen, oyna nin kastana uu lahaa markaan alaab dalbanayno, markaan wixii ka dambeeyo toos ayay noogu imaan doontaa sidee doontan kusoo hesheen,
sida programkan ku samaysan. annagana programkeena ma ahayn alaab inaan keeno keliya. programkeena waxa ugu weyn waa dekadaas inaan dhisnaa. si aan dekada u dhisi lahaynna inaan marka hore aan tusaale samaynaa ama barow samaynaa. doontan waxay noo tahay wax oo annaga koonfur galbeed haddaan nahay maalin cusub oo noo dhalatay. waa gartay xilligan marka dekada baraawe ma u diyaarsan tahay inay howl gasho? of course waa u diyaarsan tahay waayo doontan marka alaabta kasoo degta ayay soomaalida meel kastoo joogaan ay ogaan doonaan inay baraawe dekedeeda alaab kasoo degi karto oona la isku aamini karo oo markaasay ogaan doonaan. sababtoo ah doontan ma aha doon yar oo maaragtay oo adiga intaasoo container wado. doontan waxaa saaran 100 containera saaran. marka waxayna tusaale u tahay annagana aan ku faani karnaa ganacsatada soomaaliyeed khaasatan kuwa koonfur galbeed waxay u noqon doontaa meel ay ku faani doonaan ooyna badaacadooda kusoo degsan doonaan. dekada baraawe waxa ay ka mid tahay dekadaha dalka soomaaliya ee muddo sanado aan howlgelin ama gaabis ahaa shaqadooda. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo. warbaahinta dowladda turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee turkiga albaslan barektar ayaa sheegtay toddobaadkan in turkiga uu sanadka 2025 bilaabi doono qodista shidaalka soomaaliya. haddaba wararka ku saabsan qodista shidaalka iyo heshiisyadii u dambeeyey ee dowladda ay gashay ayaa xaaruun macruuf uu ka wareystay wasiirka batroolka iyo kheyraadka macdanta cabdirasaaq cumar maxamed. waa mahadsan tahay. sax waaye bishii march 7 ayaa heshiis intergovernmental agreement ah ama isafgarad ah ama MOU ah sidii la rabaa sida kale haddii loo dhigo ayaan la galnay dowladda turkida. heshiiskaas waxyaabaha uu qoray kolleyta waa horeyna faalla waa uga bixiyo ah inay yani gacan naga siiyaan arrimaha shidaalka ama ha noqoto baaritaan surveyga ama seismicka ha noqdo ama ha noqdo datada sida loo process gareeyo ama ha noqdo maxaa la dhahaa soo saaritaankii qodaalka sidii loo qoditaankiisii iyo soo saaridiisii intaba ha ahaato iyo weliba research ha noqoto intaba yani inay gacan naga siiyaan oo ay naga kaalmeeyaan maadaama turkida ay yihiin waddan leh capacityga ay yani anaga aanan haysanin oo ay badda black seaga already ay hadda ka qodeen gas ay kasoo saareen ay leeyihiin maraakiib qoditaanka samaysa iyo kuwa 3D seismiga iyo 2Dga labadaba sameeya. waxyaabahaas inay naga kaalmeeyaan oo ay yani ama technical assistant ha ahaato. waxyaabahaas uu heshiiska inahaas ayuu ku saabsanaa. waxaa kaleeto heshiiska asagana dhinac ka ahaa oo ayna weydiisteen oo ah in datada aan hayno oo ingiriiska london loo taalo oo shirkad TGS la yiraahdo ay gacanta ku hayso oo ay iibiso datada normal waa la iibiyaa inay ayadana datadii access ay u helaan maadaama heshiis laba dowladood ay wada galeen ay ahaydna yani loo sahlo loo fududeeyo in yani wax fee ahna aan laga qaadin laakiin access ay siiyaan datada ayadana waa arrintaas waa guda galnay. heshiiskuna de ilaa golaha wasiirada inaan geyno o aan ka ansixino oo diplomatic generalkii caadiga ahaa la marsiiyo ayuu u baahnaa. intiina waa marsiinay. marka heshiiska noocaasuu ahaa. kolleytu waa wixii kaleeto oo intaas ka baxsanba kolleytu waa ka jawaabi doonaa laakiin bishii march heshiiskaan galay noocaasuu ahaa. marka qodistu bishee bay bilaabanaysaa ma la cayimay halkee bay ka bilaabanaysaa? de waxa waaye ayaga maadaama datada access aan u siina hadda ayaga ayaa horta heshiis kaleeto oo waxaa jiri doono heshiiskan heshiis MOU ahaa heshiiska saxda ah oo production sharing agreementga sida wax loo wadaagayo
ama heshiiska wax wadaaga oo PSA la yidhaahdo gadaal baa laga saxiixi doonaa. annaga hadda blockska ay rabaan weli nooma aysan sheegin oo ma aysan dhihin xirmooyinkaas ayaan danaynaynaa oo aan rabnaa inaan heshiis nagula galo. laakiin waxaa muuqata dee wasiirka markuu hadlay inay yani daytadii wixii markay arkeen inay go-aan ka gaareen ayaga ay og yihiin blockska ay rabaan inay qodaan. laakiin annaga xaqiiqdaas iyo yani bloogyada ay rabaan nooca ay yihiin aysan weli nala wadaagin oo ay noo imaan doonaan marka heshiiska PSA-ga la saxiixayo. oo markaasaan sheegi karaa ayaan dhihi karaa blockskaas ayaan siinay. dabcan hadda blockska ay rabaan blockska oo 2D seismic hore loo sameeyo waayo. waxa keliya ay u baahan yihin waxa waaye wakti yar inay 3D seismic ay ku sameeyaan kadibna drillingka ay sameeyaan. marka su-aashaada marka ahayd yani blockska waa sidaas oo PSA-ga markay nala saxiixanayaan ayaan ogaanaynaa meesha ay saaran yihiin blockskaas. waa garta. sidoo kale warbaahinta turkigu siday kasoo xiganaysa wuxuu leeyahay waxaa jirta meel kamida badda soomaaliya oo aan ku tuhmayno kayd shidaal. marka waa halkay meeshaasi? wallahi dee soomaaliya waa la socotaa 2014 iyo 2015 labadaba waxaa la sameeyey 2D seismic oo kasoo bilaabanayso Jubbaland ilaa iyo Hobyo. laba company oo kala gedisana sameeyey. midna waxaa samaysay combanygii Soma Oil dhihi jira sameeyey ugu horeeyey. kadibna waxaa sameeyey company Spectrum la yidhaahdo oo markii dambe ay la wareegtay hay-adda shirkadan la yidhaahdo TGS. deetooyinkaasna waa la process gareeyey oo waa la turjumay. marka deetooyinkaas de waxay sheegayaan batrool aad u fara badan iyo gaasba inuu intaas ay ku wada jiraan maamul goboleedyadaas oo dhan oo aad u fara badan runtii. oo meelaha qaarkood sida galmudug oo kaleeta haddii tusaale kusoo qaato keligeed lagu qiyaasay maxaa la yidhaahdaa waxaa sheegayana waxaa waa geological structureka oo meesha markay fiiriyeen oo kaleeto inay batroolkana waxa hayo wax la yidhaahdo rock source ama yani ayuu ka hoos jiraa oo sababta loo duleelinayo waxa waaye roggaasaa la duleeliyaa. marka rock sourceka structureka rock sourceka galmudug ku jira oo kaleeto inuu la mid ahaa mid hadda ka hor Chevron ay ka heshay 1979kii wadankan Kazakhstan ay ka heshay oo 10 billion barrels laga soo saaray iyo rock sourceka galmudug laga helay inay isleeyihiin. weliba midka galmudug laga helay oo 4 mar uu ku jibaarmo size-ka oo rock sourceka laga helay Kazakhstan ay Chevron ka heshay 1979kii. marka ilaa 40 bilyan oo baarl ilaa 50 bilyan oo baarl ayaa estimate-ka oo deetooyinka ay process gareeyeen weliba kambaniya kala gedisan ayay tilmaamaysaa. sidaas lamida South West iyo Hirshabelle iyo Jubbaland ayagana rock source kaleeto oo sidaas oo kaleeto lagu tuhmaayo inay yani ay ku jiraan ay ku jiraan petrol iyo gas ayaa ku badan weliba dhanka southka markaa aadid southkeeda markaa sii aado waxaa ku badan gaaska. laakiin ilaa discovery la sameeyo oo drillingka la sameeyo dee prospectiga saxda ah oo gaaska intuu leeg yahay lama ogaan karo. waaye hay-ado kale ama shirkado kale ama wadamo kale oo hadda lala saxeexday iyagana inay shidaal baaraan miyay jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkadda Coastline Explorations? waxaa jira hay-ad kaleeto shirkad kaleeto oo Liberty la yidhaahdo oo Australia gaaska ka qodo oo ayadana aan la saxiixanay heshiis bishii March. marka laga reebo labadaas Turkida weli PSA lama aanan saxiixan wixii la fahmaa la rabaa. Turkida waxaan la saxiixanay waxay ahayd safgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka. laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu geli lahaa weli ma aanan la gelin
marka labada shirkad oo keliya waa coastline iyo liberty, labadaas keliya ilaa hadda wax BSA la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay. marka Liberty Petroleum maxaa lagula heshiiyey? heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa? imise xidhmaa loo saxeexay? waxaa loo saxeexay 3 xidhmo, mid oo galmudug ku yaalo, mid South West ah iyo mid oo Jubbaland ah. 3 xidhmo. heshiiskana wuxuu ahaa dee Liberty muddo ayay yani soo socday oo waxaa ka soo shaqeynayay hay'adda Somali Petroleum Authority ayay horey waqtigii coastline loo saxiixay in loo saxiixay ahayd. marka hadda markii ay bishii March hadda ahayd ayaan la saxiixnay iyagana. heshiiska termiska lagula heshiiyey waa termis runtii oo attractive ah, Soomaaliyana u fiican, dee waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan, waafaqsan PSA modelka ay IMCC ay ansixisay 2021kii. sababtoo heshiis markaa gelaysa heshiiska waa inuu waafaqsan yahay modelka production sharing model agreement modelka la ansixiyey. waxa uu tilmaamayo termisku tilmaamaya hadday yihiin royaltyga laga qaadaya inuu 5% yahay, waa inuu 5% noqdaa. maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometerka inta uu yahay. markaa fiirisid yani waa very attractive. waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaabo oo legislated oo sharci ah oo aadan ka gudbi karin. dhanka oo financing oo kale taxationka iyo markay yimaadaan income taxka laga qaadayo waa inay 30% ay noqoto, royaltyga waa inuu 5 noqdaa. waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyey ayaa tilmaamaya 2022gii ayaa tilmaamayo. faa'iidadana sidee loo qaybsanaya? income taxkaasaa tilmaamaya. marka waxyaabahaas waa legislated. waxyaabaha kaleeto negotiationka ahna hay-adda EPS Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiationka soo gashay. anigana saxiixasaan lahayo waa saxiixay. dee markaan fiiriyey termiskii inay compliance ay ku yihiin PSA modelkii, saasaan u saxiixay. faa'iidada see loo qaybsanaya? faa'iidada dee horta waxay 2 nooc waaye. faa'iidada waa la socotaayo dee shirkadii cost bay gelaysaa. waxaa jira wax la yidhaahdo cost recovery. cost recoveryga markay soo dhamaysto cost recoveryga uu dhamaado, ama 2 sana ha ku dhamaado ama 3 sana ha ku dhamaado, kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50 loo qaybsanayaa. waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye. kaasi wuxuu ahaa wasiirka batroolka iyo kheyraadka macdanta ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u waramayey wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf. waraysigan qaybo kale oo ka mid ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. khuburada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Maraykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka la barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay ee xanuunka COVID-19 uu saameyn aan wanaagsaneyn ku yeeshay. haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Maraykanka iyo kuwa gobolada kala duwan ee dalkan ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota. waa mahadsan tahay walaalkiis. dhaqaalaha guud ee Maraykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. markii xataa weliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sarreeyo oo G7 loo yaqaano kale, Maraykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto. had 3 biloodba waxay dawladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Maraykanka markii la fiiriyo aad bay u kobcaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay, markii weliba laga soo baxay COVID-kii waqtigeeda markii laga soo baxay. dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rab waa shaqa waa heli karaa Maraykanka. waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha yani saacadii inta lagu shaqaalaysiiyo kor bay u kacaysay oo
sanad ka dambeeya 3 sano lasoo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysa laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadka culays ku hayso inkastoo laga yaabo dhinaca shaqadoodii inay fiican tahay haddana wixii ka aadayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan kor bay u kaceen soo taas ayada ruuxeeda culays ay leedahay waxaa kaloo culays leh waxaa loo yaqaano bangiga dhexe wuxuu sameeyey wuxuu kor u qaaday waxaa lacagaha lagu kala bedesho loo yaqaano interestiga oo loo yaqaano ayuu kor u qaadayo haddaa rabto hadda inaad kaar oo bangi inta kasoo daysato lacag deyna aad isticmaasho kale taa marka wax bishii lagu dulsaarkaas ayaa kor u kacay Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaale ahaan lacagaha deynta dad badan ama waxay leeyihiin deyn gurigii ama deyn ay gaari kusoo qaataan mukhtaar ruuxda kor u kacda taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas maraya waan gartay haddaynu gobollada u nimaadno gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobollada kontonka ah ee dalka Mareykanka horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa marka qaar muhiimka markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaale ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan waxa laga yaabaa inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaale ahaan markii la fiiriyo dadka ku dhexno tusaale ahaan Mareykanka California kale waa dhaqaalaha ugu weyn waaye Mareykanka oo 15% dhaqaalaha Mareykanka California waaye soo gobollada waaweyn Texas oo kale ku xigta New York dalalkaas gobollada waxa waaye dhaqaalaha qaybta u weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol laakiin haddii loo fiirinayo si guud waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo wax yar ka inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolkaas dhexdiisa dadku intay lacag samayn karaan dhaqaalaha qaybihiisa kala duwan soo marka waxaa laga yaabaa kala tusaalahan gobol qaar in dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel in ku xiran yihiin ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xiran dalal laakiin gobollada inta badan dhaqaaladu fiican waa gobollada waxyaabo kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaale shaqo ka heli karo hadday noqoto meelii dukaamadii shaqo ka heli karo hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo soo gobollada ugu fiican oo kale gobollada noocaasa waaye soo hadda tusaale ahaan oo kale waxaa kuusii karaa oo kale gobolka haddaan degan oo Minnesota kale waxaa la dhihi karaa dhaqaale ahaan intuu soo galo uu ku soo kordhiyo haddii loo fiiriyo dhaqaale ahaan inuu boqolkiiba intuu ka yahay Mareykanka inuusan wax weyn ka ahan oo gobolka 20aad ka yahay laakiin markii loo fiiriyo shakhsiyan markii dadka loo fiiriyo meesha degan qof wax soo saarka shakhsiyaasha loo fiiriyo waxa waaye waa gobollada ugu fiican buu ku jiraa xagga yacni kaabayaasha dhaqaalaha ama jidadka ama waxaas gobollada ugu fiican buu ku jiraa dhaqaalaha kala duwan oo marka la yidhahdo yacni isku oo hadda qiimo kale ama ha ahaato warshado ama ha ahaato dhinaca teknolojiyadda ama caafimaad ka ahaato yacni waxa waaye waa gobol dhaqaalihiisa oo aad u sal ballaaran yahay laakiin haddii weliba iyadoo loo fiirinayo gobollada ku wareegsan sida oo ku dara gobollada meeshaan hadda ay ku yaaliin waa gobollada beeraleyda waaye dad badan soo beerana wuu leeyahay soo waxyaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni uga saaraya gobollada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobollada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo waan garta hadda Minnesota kalaad soo qaaday markaad eegto gargaarka dawladdu ay siiso dadka saboolka ah waxa ay dadku u yaqaaniin caydha ilaahay caydh nagama dhige waa gobollada aadka ugu gacanta furan marka dadka qaar baa aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maaragtay qabowga daran ee jira dartii in dowladda federaalka ay gargaar dheeraada siiso marka arrintaa maxaa ka jira arrintaas sina waa sax sina qalad dowladdu lacag dheeraada ma siiso oo gobolkan wuxuu ka mid yahay gobollada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan lacagta canshuurta ay dowladda dhex ka qaado iyo midda usoo noqoto yarta soo waxaa la dhihaa waa gobol lacagta uu dowladda siiya ay badan tahaaba markii loo fiiriyo waxa soo gala marka ma jirto lacag gooniyood oo dowladdu ay siiso gobolkan inta badan waxay taa ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida sababto waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare dowladda dhex uga qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas waxaa laga yaabaa gobollada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida Mississippi iyo inay yihiin gobollada ugu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxa ay ku dowladda kusoo kordhiyo ay dowladda dhex canshuur ahaan uga qaadato marka taa ma jirto laakiin inta badan waxyaabaha safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan ama ahaato dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso ama ha ahaato baalka la yidhaha dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa yacni gobolkan waa gobol aad runtii
ugu maaragtay furfuran taana inta badan xisbiyada ku xiran tahay minnesota sida taqaan waxa weeye gobol oo dimuqraadiga inta badan maamulo marka taas way keentaa inay aad u kabacdo laakiin ma u malaynayo soo jiidashada hadda tusaale ahaan soomaalida kale ay gobolkan degan tahay inay tahay un ceyr baan doonanaynaa waxa soo jiida waxa weeye gobol wuxuu ahaa sagaashamiyada markii dadku inta imaanaya u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saas sax tahay shaqooyin kala duwan oo luuqada lagu xujeynayno inay ka jirto marka oo hadday noqoto warshadaha laga shaqaynayo halka marka dad badan taaba soo jeedo sababtoo haddii la fiirinayo gobol uun waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobollo kale waa laga heli kara laakiin waxay ay gobolkan isagoo taana jirto haddana si dheer qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyin oo kala duwan waan gartay waxaad soo qaaday in gobolladu ay lacag siiyaan dowladda dhexena haddii gobolkaas uu sabool yahay wax ku soo celiso marka bal tusaalayaalna si gobollada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu intaa in ka badan ay dowladdu ku soo celiso ay ku kabto taa haddaan dib u noqdo gobollo ma jiraan lacagay dowladda inta soo qadan siiyaan waa inta badan waxay ku xiran tahay canshuur soo tusaale ahaan anigu waa shaqeeya canshuurta laga jaro laba way so gobollada qaar waxay leeyihin waxa la yidhaahdo canshuur laga jaro qofka shaqeeya gobollada qaarna ma laha laakiin dowladda dhexe markii la fiiriyo federal government canshuurta laga jaraya haddaa shaqeyso waa canshuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxa la yidhaha progressive taxes weeye markii la fiirinayo dadka kambaniyada ama shakhsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba ilaa 10 kun oo reer inta bal lagu cashuuraya 10 ku xiga inta bal lagu cashuuraya ilaa kor u sii kacdo laga yaabo 30 xoogaa in laga qaado qaybta u sarreysa lacagta marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeyaan hadduu gobolka gobol faqiiraya marka gobollada kala barbar dhigo lacagta canshuurta dowladda dhexe ka helaya waa yarta laakiin waxaa laga yaabaa faqiirnimadaas waxay keenaa maadaama gobolka dadka saboolka ku nool oo waxa povertyga wax loo yaqaano oo levelka dowladdu habbay u xisaabidaa jirto waxa la yidhaha okay familkii 3 qofood ah ama hadday intaa ka yar sameeyaan tusaale ahaan lesi 25 kun wax saas hadday ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada meesha hoosey gelayaan marka taa waxay keenaysaa in waxyaaba badan u qalmaan magarad oo taa halka ka soo gasho so ma ahan waa wax ku xisaaban qaacido dhisanoo waxa weeye wax lagu helo ma jirta qolo gooniyo ama dowladda wax badan siinaysa ama wax ka qadan laakiin qaacido weeye qaacidadana waxa weeye gobolka hadduu yahay gobol kambaniyaal waaweyn ku yaaliin dadka jooga ay lacag fiican sameeyaan tusaale ahaan hadda minnesota haddaad soo qaadatid ama gobollada lamidkaa soo qaadatid waxaa laga yaabaa inay yihiin gobollo dad dhinaca technologyda iyo wax soo saarkiisa oo dadka shaqeeya dad badan oo lacag badan sameeyaa jira dadka taa macnaheed waxa weeye canshuur badan baa laga qaadaya dadka marka halkaabay ka imaanaya lacagta badan oo say u xisaabiyaan marka waxay fiireen waxay dhahaan tusaale ahaan haddaad fiiriso mississippi gobollada ugu saboolsan ku jirtaa haddaad fiiriso waxaa laga yaabaa halkii dollar oo dowladda siiyaan in $1.60 xaraa tusaale ahaan marka saasaa loo xisaabiya ama haddaad barbar dhigtid lasey massachusetts oo minnesota waxaa laga yaabaa waxyaabaha oo halkii dollar ay dowladda siiyaan in 60 centi usoo noqoto tan hadda waa cabiraad guud yani numberka caadiga hadda rekoorka meel laga cabiraad guud weeye soo saasay u shaqaysaa waan gartay marka si guud haddaan eegno tartan baa ka jira caalamka dhaqaaluhu mar kor buu kacaa kor buu hoos buu dhacaa hadda wadamada shiinaha iyo kaladaad u barbardhigtid maraykanka intay isu jiraan horta shiinaha iyo maraykanka dhaqaalahooda horta waxay ku kala xiran yihiin qolo waxa dhaqaalaha markii laga hadlayo waxaa la fiiriyaa qolo walba maxay inay soo saarto u fududahay ama yani inay soo saarto ay uga horumarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale shiinaha inta badan waxyaabaha uu kula tartama adduunka wey waxaa u fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay oo indada ay fudud tahay oo waxa lagu shaqaalaysa koobanta inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yaqaano la isticmaalo haddaad maanta dukaan maraykanka tagto alaabaha yarka hayo inta badan china ka imaanaya china taaba ugu horeeyaa maraykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guryuhu laga isticmaalo oo lasoo gato yararka oo dhan ma isagaa soo saaray laakiin hadday noqoto maanta tusaale ahaan diyaarada yaa soo saara ama teknolojiyada waaweyn yaa soo saaro kale oo aad u sarreeya oo inta badan u baahan aqoon soo jireenaheedoo xagga maaragtay maskaxda ah maraykanku ayaa taa kor ku horeeya taa waa midda guud marka la fiirinayo maxay dalalku ku tartamaan qoloba waxbaa u raqiisan inay soo saarto so china waxaa laga yaaba inay u raqiisan tahay lagama yaaba waaba taaba u raqiisan tahay waxyaabahan dadku isticmaalaan maalin walba bagaashka bagaashka
maraykankana ay u saarta waxyaabaha capital goods waxa la yidhahdo macnaheedu maaha in labadaba soo saarino laakiin maraykanka inay taa u fududahay laakiin guud ahaan markii hadda loo fiiriyo xilligii pandemic bacdi oo kale China waa dowlad dhexe oo awood leh oo dhaqaalaha iyadu aad faraha ula jirta oo wax dhisayso oo wax gelinayso so China kobaca marka la fiirinayo dhaqaalaha يعني last 30 years soddonkii sano la soo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu 10% temp uu korayo sanad walba maraykanku saas maaha maraykanka koritaankiisu aad buu u kooban yahay haddii 3% uu koraa waa la farxaaba so China haddii la fiir aad buu usoo koraayo aad buu koritaankiisu zaa'id u ahay laakiin hadda wixii pandemicii ama hadda covidkii ka dambeeyey China dhibaato weyn baa haysatay dhinaca dhaqaalaha oo maaragtay aad buu dhaqaaluhu maaragtay oo cariiri u gala China maraykankuna waa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilligii hadda laga soo baxay cudurkan laga soo baxay waa dalal kooban waxa waaye dhaqaalihiiba uu aad u kobcayo oo maaragtay oo zaa'id yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin oo maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxa la fiiriyaa bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wageska waxa loo yaqaano soo galo kale in ay korayaan 5% oo sidii hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso isku celcelis weekii gobolka ahaan dawfis oo kale isku celcelis weekii waxa laga yaabaa in la yiraahdo waxa soo gala waxa waaye $2,000 weey tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxa laga tahay in kor u kacisay week sanad walba hadda 2-3 sano soo kordhay taa marka hadda dalalka Ingiriiska ama Canada hadda fiirisid run ahaantii Maraykanku aad buu hatta China barbardhigtay dhaqaalaha Maraykanka caafimaadkiisu 3 bilood soo dhaaf waxa la dhigi karaa meel kor ugu jira kaasi wuxuu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota wuxuu warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere